بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السلام يا دماء شعب الصومالية بملكست الدنيا كتوغان خاصة شعب الجيس كأفريقيا الصومالية يودمنا ندرس كنول ودهان وحان ما أنت قضبضي إن قلبت سياسة الجيس كأفريقيا ورمينا حالة الدل قلي حسن الشيخ محمود يوم معارض يولي اسكالات لادا دولة نمدي أو مرة كتيرتا يو حسن أو laga shakinayo inuu khiyaamo hor leh abuurayo abaabul guud oo mucaaradku ay wadaan iyo midnimo la'aantooda oo sababay xasan inuu fursado badan helo iyo beesha caalamka oo quuska taagan Soomaalidu inay dowlad noqoto oo dowladnimada hanan karto sababtoo waxa la yaaban yahay nin kasta oo Soomaaliya oo kursiga ku fadhiista inuu dowladnimada iyo doorashada iyo waxyaabihii wax qabadkii oo dhan muran geliyo mooyaane horaba looma soconay dib baa loo socdaa aad baa looga xumaaday arrintaas haddaan ku bilaabo xaaladda guud ee dalku waa dhibaataysan yahay madax male dhaqaale male caruurtii iyo dadkii awoodda daraa ee aan shaqaysan karaynin ma haystaan cid cuquudiso oo dowladnimo damaanad qaada noloshooda ma haystaan ilmaheenii gudaha iyo dibaddaba waa ku dayacan yihiin Soomaali boqolkiiba 80 dhalinyaro weey dhalinyaradii waxa weeye waxaa ka lumay rajo xumaa dishay wax qof kastoo dhalinyaro ah inuu waddanka ka dhoofo mooyaan inuu wax soo saaro oo dalka wax u soo kordhiyo xitaa kuma fikiro markuu dalka ka dhoofana 10 sano wuxuu kaga lumaa oo dhalinyaronimadiisa intuu la qabsanayo wadamo shisheeye ama uu sharci ka helayo nasiib darooyinkayna haysatayna ka mid tahay by the time uu qof wax kala garanayo noqdo 30 sano ama 20 sano waqtigiisii baa lumay xaaladaas guud ee aan dalku ku jiro iyo nasiib darrada madax xumada ina haysata dalkoo madax aan lahayn nin kastoo xil qabto wuxuu ka dhigaa sidii qoyskiisii isaga kaliya ay dalkii taladiisa leeyihiin waxaasoo dhibaato ah oo ina haysta waxaa inoo sii dheer waddankeennii oo laynagu haysto bad iyo bariba waa laynagu haystaa shisheeyaa taladii inala leh xalanaa laynoo fadhiyaa nairobaa la fadhiyaa wadamada dariska oo dhan waxa weeye waxay noqdeen aalad laynoo adeegsado oo ay dad shisheeye adeegsadaan hadda iyagu keliya dan leeyihin waxa may ahaatee shisheeye kalaa sii isticmaalaya waxaasoo dhan markaan qiimaynay waxay isugu soo biyo shubteen in la helo madax fiican marka hore oo at least dadka Soomaaliyeedna wax u qabta dalkana ka saara xaaladda adag uu ku jiro si taa loo helo waxaa la rabaa shacabku inay ilaahay u noqdaan oo nidaamkan qabaliga ah meel lagu gaari waayey labada beelood waddanka u afduuban in laga xoroobo ummaddu qalbigeedu inay ka baxdo waxan
reer abaabulan iyo reero abaabulan meel inama geenayaan wadankii waa aragtaa siduu yahay waxa weeye reerkii marka kursiga ku fadhiistaan nin baa taladii oo dhan qaadanaya reerka intiisii kale waxay noqonayaan qatanayaal marka reer waxba ma taro meelna laguma gaadho kursiga hal nin baa ku fuula ninkaasaa hadhowto tacab sida xasan oo kale iska galaa dabcasho iyo xoolo dhaqasho iyo adduun raadin baa la gelaya calaa ayi xaal mucaaradkii waddanka soomaaliya waxay noqdeen xasan sheekh kursiga ka kacsada mooyaane wax fiican oo bedela oo dowladnimada iyo ummadnimada soomaaliyeed sii wadi kara wax qorshaha u yaallaa ma jiro midda kale nin walba goonidiisu u socdaa isagaa raba inuu madaxweyne noqdo nin kale waxba uma ogolaa sideedabana dadku haddayna qalbiga ka midaysnayn waxba ma taraan inay fawdo abuuraan oo dowlad kasoo horjeestaan mucaaradka dowladda soomaaliya kasoo horjeeda uma diyaarsana inay dowladnimo qabtaan wixii berigii farmaajo laga soo horjeeday ay sameeyeen oo kale unbay haddana wadaan qodobka halkaasaa kaga baxayaa waxayna tegi doontaa xasan sheekh maxamuud siduu lugta u jiidayo ummadda oo beesha caalamka isaga daba wareeg iyo ilo meeraysa ugu jiro waxay tegi doontaa in shisheeya talada dalka la wareego oo kadibna meel talada loo siman yahay la isugu tago oo nin walba uu shacab yahay oo xasan sheekh maxamuud waxaanuu hadda ku naaloonayo iyo dalkan uu madaxda ka yahay iyo askarta ku hareeraysan iyo waxaanuu isleeyahay adaa iska leh meel banaana inta loola baxo la xiniyo siibo oo la yidhahdo raggaasaad ka mid tahay fadhiisa halkaa wixii lagu heshiiyaa ayaa la go-aaminaya maalintaasaana ugu dambaysa karaamo iyo sharaf damboo loo hayo qodobka halkaasaa kaga gudbayaa qodobka labaad etoobiya isbedeladii ka dhacay markii abiy axmed uu xilka qabtay soomaalida awoodda badan ku yeelatay federaalka etoobiya wasiirka maaliyadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka petroleumka iyo wasiirka gaashaandhigka iyo wasiirka arrimaha gudaha intaasu waa soomaali labo waxay kusoo galaan inay yihiin wadamo kale ay yihiin canfar iyo baalkii wasiirka arrimaha gudahana oromo kusoo galaan laakiin waa kamaal baale ah soomaaliga aniga waa iga badiyaa waa nin soomaali ah oo akisho ah wey horta waxaa nasiib wanaaga inaynu dalkaasoo dhibaato badan inooga iman jirtay inaynu la wareegnay oo maanta dalkii soomaaliya duulaan qaawanku ahaan jiray uu raadinayo meeluu bad ka helo bad inuu isagu hadda raadinayo ragga badda raadinayana waa wiilasheeni maaha dad kale marka waxaan leeyahay anigu soomaalidu intay nimankaas joogaana ka faa'iidaysteen amxaare iyo tigree soomaali waxba uma hayaan horaan loo arkay dowladnimadeennii waxaa burburiyey labadaasay ahaayeen waana labadii xukunka isu kala bedelay waxaa hadda soomaaliya muqdisho naga haysto oo kale weeye labadana aan fahmi la ahay ee dowladnimadii iyo nidaamkii iyo kala dambeyntii wixii oo dhan burburiyey ee maraya iminka in kii xil loo dhiibaabo inuu milyaneer mandarada dhisto waxay u baahannahay doorashooyinka soo socda inaynu wax badan uga faa'iidaysano si aynaan gacan ugu gelin cid shisheeye waa inaynu inagu waxaynu nidaamsanaa doorashadeenna waa inaynu inagu nidaamsanaa taas waa talo ku socota xasan sheekh maxamuud iyo inta ku hareeraysan ee xisbiga noqotay maamuladii hore ku jiraane wadatashiga qaran ahaan jiray gabagabadii qodobka ugu dambeeya kusoo gabaygabeynaya waxaa weeye somaliland madaxdeeda waktigeena iskaga luminin dowladda kenya sababtoo ah dowladda kenya ma aha dowlad somaliland wax u haysa maaha no maata waxay tahay hantidii soomaaliya oo dhan ayaa nairobi taalla ra-iisul wasaare madaxweyne wasiir xildhibaan ilaa taliyayaasha ciidanka wax kasta dowladda soomaaliya ka jirta ee labadaa beelood haystaan hawiye daarood iyo dowladaha kenya ka dhasha federation baa ka dhexeeya oo isku dhex milmeen hantidii ummadda soomaaliyeed lahayd oo dhan ee lasoo dhacay nairobia lagu dhistaa dowladda kenyana qeyb bay ka tahay hantida soomaaliya laga dhacayo
dowladnimada Soomaaliyeed inay sidaa ahaato way ku taajirtay. sidaa daraaddeed madaxweynaha Somaliland waxaa leeyahay iyo shacabka Somaliland Kenya waqtigaas kaga luminayna dowladda Soomaaliyeed oo waxeedii oo dhan maca dowladnimadeedii Kenya lagu soo dhisay baa ayaa joogta oo xidhiidh la leh dowladda Kenyana dhaqaalo badan bay Soomaaliya ka samaysaa ma rabto waxeedaa inay iska kala daadiso soo waqtigaas kaga lumina. fariintayda aan u dirayo markaa waxaa weeye dowladda Ethiopia ee uu Abiy Ahmed madaxda ka yahay ee uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka ka yahay ninka la yidhaahdo Aadan Faarax ee wasiirka maaliyadda Axmed sida ka mid yahay ee Kamaal wasiirka arrimaha gudaha yahay wasiirka petroleum gabadhii Soomaaliyeed tahay reer Booraba asalkeeda reer Awbaraan leeyahay dadkaas wax la qabsada dalka 120 milyan wixii aad isweydaarsanaysaa dhaqaale iyo business iyo military iyo wax wada qabsi iyo amni iyo iskaashi dowladeed iyo badda wixii ka soo dagay iyo wixii aad dakaday iyo kala waxaas businessyadii naas iyo dalka ku koobnaada siyaasaduna ha ahaato siyaasad awood military awood dhaqaale aad dhisanaysaa waqti iskaga luminina diblomaasiyad wadamo daris ah oo ay Kenya iyo Djibouti ku jiraan. waxaan rabaa inaan fariin u diro markaa shacabka qowmiyadda aan madaxda u ahay ee dir doorasha ay nagu soo socoto waana laynoo tashaday waa ka warqabtaan 75 xildhibaan oo aqalka sare iyo aqalka hoose oo Soomaaliya ah ayaa jira oo direed maamul goboleedyada oo dhan waa layna laga dagaalamay waxaynu ku baxsanay maamul goboleed Somaliland la xisaabiyey oo Muqdisho wixiisii oo dhan la keenay baa xildhibaanada ugu badan ka soo galeen oo intooda badan ilaa iyo 50 iyo dheeraad ay yihiin Somaliland. waxaan kula talinayaa markaa qowmiyadda direed ilaa Waamo ilaa iyo xuduudka Eritrea tuulo iyo degmo iyo magaalo Soomaaliya ka tirsan oo aan dirdeganayn ama aanay aasaasin ama aanay lahayn ma jirto. one man one vote cadaalad ku dhisan hadday dhacdo dalkaynaga qabsanayna inta ka horeysa waa in la adkaystaa sidii villa Soomaaliya aynu ugu tartami lahaynna waa in falowgeeda la qabtaa aqalka sare dambana yaa la isu soo sharaxin musharaxnimada 12 bilood baa hadda laga joogaa waqtiga Xasan Sheekh kaga eg tahay waqtina waa lagu kordhinayaa ugu yaraan 6 bilood musharaxnimadayda waa miiskay saaran tahay ha laygu taageero. waxaan kaloo rabaa inaan u baaqo mas-uuliyiinta xilalka haya oo dhan ee geeska Afrika ama ha joogeen Axmed Shide iyo Aadan Faarax ha noqdeen ama Ismaaciil ha noqdo ama Muuse waxaan leeyahay Cirra ha noqdo ama ha noqdeen Cawad iyo Baad Cabdalla Cawad iyo Saalax iyo Maareeye iyo dadkaas ha noqdeen waxaan idinkula talinayaa midnimada iyo wada jirka iyo wax wada qabsiga iyo abaabulka in la badiyo si aynu isaga dhicina raggaas dowladnimadii inoo adeegsaday. waxaan kusoo gabagabaynayaa walaalkeen Hanuuniye oo aynu ku naqaanay inuu inagu hanuuniyo tala fiican oo ah dalka gurmad buu u baahan yahay. Get
soomaaligaygu gurmad buu rabaa waxaan idinkaga tegayaa hanuuniye iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu